Saylac waxay leedahay jasiirado kala duwan oo loo dalxiis tago. Jasiiradahaasi waxaa ka mid ah Saacadiin oo ah tan dadka ugu badani ay u dalxiis tagaan, waxaana maalin kasta u dalxiis yimaada dad iskugu jira Soomaali iyo ajaanib kuwaasi oo booqda bilicda jasiiradani. Maanta oo aan tegay jasiiradda Saacadiin ayaa waxaan kula kulmay Maxamed Ibraahim iyo sidoo kale Xasan Dhagax oo iyagu ka mid ah odayaasha muddada dheer ku soo noolaa magaalada Saylac isla markaana dadka u dalxiis geeya jasiiradda Saacadiin. Waxaanan maanta ka waraystay jasiiradda Saacadiin waxay kaga duwan tahay jasiiradaha kale. waxaan ku noolahay magaalada Saylac waan ku dhashay waana ku dhalay. jasiiradda Saylac haddaan kaaga warramo jasiiradda Saylac waxay jasiiradaha kale kaga duwan tahay waxa ay leedahay geedka aad arkayso oo la yiraahdo mangrove-ka red mangrove. geedkaasi kuma yaalo jasiiradaha kale lamana qabaan. jasiiradaha kale waa banaanka cad oo kale iyadu halka Ilaahay rabbaaniga uu sameeyay. geedkan mangrove-ka aad leedahay ma geed meeshan u gaar ah oo kaliya ka baxay mise meelo kale oo ka baxay meelo kale oo ka baxa uu jira oo ka baxa bari canfar qoor cankaar baa la magaceeda cankaarkaas ah ma garanaysaa mangrove-kan ya annaga af Soomaali waxaan ku naanaa qandal. aad waxa tahay inaa khudi jasiiradda dadka keenay bal geedkan mangrove-ku muxuu faa'iidooyin u leeyahay geedkan xagga bilicda ayuu aad u qurux badan yahay. geedku intuu dhakada ka soo daayo xidid iyo halka dhulka ka geliya mid kale dhirta kale hadii la gooyo dib u fiishaa Soomaa isagu hadaad maanta ogeyso halkaas ku daay dib uma fiilayo murihi soo dib soo baxay mooyaan siirkiisa ma la ilaaliyaa marka geedkan mise iska baxay dir ilaahay geedkan markii hore dir ilaahay buu baxay waxa laga guran jiray berigi hore tiirashin barandiyash lagu sameeyay magaranaysa magaalada kale lagu yaacada tuqoshi ilaa Saylac inta meesha joogay ciidanka la shaqeeyaa wax xabad lama yalla wixii dhaqaaqay waan soo sheegay marka Saylac ma jasiiradan oo kaliya leedahay mise kuwa kalena way leedahay waa toddoba jasiiradood Saacadiin ceebaad musheekh Koomali aw milix Dureyn Soloqtiya toddobada way diyaaradaha Mareykanka ka yimid Yurub oo soo dalxiis taga nin China halkan ugu yimid markuu halka meesha saaw eegay eenu ka xeynay gurada u baxay wuu yaabay war ma dhulkan dad oo limbuuri ma yeelan ku niri dhulka dadba ma joogno guur quruxdan oo kale ayaa arkaba buu kuleeyahay diyaaradaha marka halka gurada fadhiistan lix baa soo fadhiistan 12 kaabilmo 12 maalmo saacad walba way u daawasho yimaadaan inta jasiiradda dadka keenaysa wax dhibaatooyin oo inaga hormid ma jiraan waxa weeyaan dhibta ugu weyn waxa weeyaan laashashka dadka soo qaadaya in la ilaaliyo dilaash weyn oo hagaagsan la saaro intaas taana marka taxriirnaayo laash hande dadka qaad kareen ma saaro marka laakiin xagga wasaaradda dalxiiska yaa halkan wax ku hori abaya ka laakiin lafteedu waxay dhibaatooyin ay qabtaa jirto wax dadkan u soo dalxiis taga ay ku soo kordhiyaan habeeraatay ma jirto daawasho ay daawadaan mooyaane anna markasta oo ka hadlay waan ka hadlaa waxaan war wuxuu ugu soo talagalay baasha daladna noqotay marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay khayr looga dhigo wasaaradda dalxiiska halka u soo jeesato qurba joog iyo qolqol joogba inay Saacadiin loo guntado oo aan quruxdeedu lagu soo talagalin iyadana sidii wax loogu qaban lahaa dee laga fikiro